Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maantana waxaan rabnaa inaanu ka hadalno jasiiradaha Jabuuti iyo muhiimadda ay u leeyihiin guud ahaan dalka Jabuuti. Jabuuti waa dal yar oo ku yaalo geeska Afrika, laakiin inkastoo uu dhul ahaan yar yahay, waxa uu leeyahay xeeb aad u dheer oo badweynta Indiya iyo badda Cas isku xidhan. Waxaa ku yaala jasiirado qurux badan oo dalxiis iyo nasasho u ah dadka gudaha iyo dibaddaba. Aan mid u dul istaagno jasiiradaha ugu caansan ee dalkaasi Jabuuti. Haddaba subscribe ina soo dheh, like-tana ha inaga baqaylin. Mahadsanediin. Jasiiradda Muja. Jasiiradda Muja waa tan ugu caansan jasiiradaha Jabuuti, waxayna ku taalaa meel aan ka fogeyn caasimadda. Waxaa lagu yeeraa Jannada Jabuuti sababtoo ah waxay leedahay ciid cad oo dhalaalaysa iyo biyo buluug ah oo nadiif ah. Dalxiisayaasha halkaasi booqda waxay ku raaxaystaan dabaasha, qusitaanka badda hoose iyo socdaalka doonyo lagu maro. Waxaa kaloo laga helaa kalluun kala nooc ah iyo qoolley midabyo kala duwan leh oo soo jiidasho gaar ah leh. Maalin jasiiradaha Muja lagu qaato waxay qofku dareensiisaa sida uu dunida kale uga maqan yahay, sababtoo ah waa deegaan degan oo dabiici ah oo qurxoon. Jasiiradda Maskali. Agagaarka Muja. Jasiiradda Maskali inkastoo ay ka yar tahay Muja, haddana waxa ay leedahay soo jiidasho gaar ah. Maskali waa meel aad ugu habboon dadka jecel qusitaanka badda iyo daawashada nolosha badda hoose. Waxaa halkaasi laga arkaa kalluun midabo leh, qoolley qurux badan iyo xayawaano kale oo badda ku nool. Maskil sidoo kale waa meel ay jecel yihiin dadka doonayo nasashada iyo degganaanta maadaama aysan buuq badani lahayn. Jasiiradaha Seven Brothers Islands. Jasiiradahani oo loo yaqaano Toddobada Walaal waxay ku yaalaan meel muhiim ah oo istiraatiiji ah. Agagaarka marinbiyoodka Bab el-Mandeb waa goob caan ku ah qusitaanka qotada dheer, sababtoo ah waxaa laga helaa xawayaan badeed oo aad u badan. Mararka qaar dalxiisayaasha nasiibkooda ayay ku arkaan shabeel badeed, taasoo ka dhigta waayo aragnimo muhiim ah la ilaabi karin. Biyo ku hareeraysan jasiiradahana waa kuwa nadiif ah oo ku habboon kalluumaysiga iyo dalxiiska badda. Waxaa sidoo kale ku nool shimbiro badan oo xeebaha dega, taasoo xiise gaar ah u leh dadka xiiseeya duurjoogta. Jasiiradda Godaria. Godaria waa jasiirad kale oo qurux badan oo ku taala xeebaha Jabuuti. Waxaa lagu yaqaanaa deegaanadeeda dabiiciga ah ee weli aan si buuxda loo taaban. Dadka halkaasi taga waxay ku raaxaystaan socdaal doonyo yar, kalluumaysi iyo aragtida xeebaha aan la taaban. Waa meel aad ugu habboon dadka jecel deganaanshaha iyo in ay ka baxsadaan buuqa magaalooyinka. Ugu dambeyntii, jasiiradaha Jabuuti waa hanti dabiici ah oo aan qiimo lagu cabiri karin. Quruxda ciidda cad, biyaha buluugga ah, qoolleyda badda iyo xayawaanada kala duwan ee halkaasi ku nool ayaa ka dhigaya meel ku habboon dalxiis iyo nasasho. Qof kasta oo booqda Jabuuti, haddii uu doonayo in uu arko waxyaabo dabiici ah oo la yaab leh, waa inuu booqdaa jasiiradahani quruxda badan.